السلام عليكم أصحابتا وردقدقة ciidanka ICE ayaa haddana caawa goordhow magaalada Minneapolis qof kale ku toogtay ciidamada ICE oo howlgalladoodii dadka ay ku qabqabanayeen ka wada waqooyiga Minneapolis gaar ahaan wadada 24ka iyo Lindale Avenue ayaa waxaa la leeyahay waxaa soo weeraray amaba doonayay inay si gaadmaha u soo weeraraan 3 nin oo Venezuela ka timid waliba dadka sharci darrada waddanka ku joogay ah marka askari ayay mid ka mid ah ayaa waxa uu watay la leeyahay badiil uu doonayay inuu askariga ku dhufto sida wasaaradda amniga gudaha ay xaqiijisay askarigii markuu arkay ninkan ku soo ordaya oo badiilka wato ayuu xabad ku riday lugta ayuuna uga dhuftay sida afayeen u hadlay wasaaradda amniga gudaha Tricia McLovin ay sheegtay isagoo istifaacaya labadii nin oo kale oo la socotayna booliska ayaa qabto waa la xiray ninkii dhaawac ahaana isbitaalka ayaa loo qaaday askarigana sidoo kale waxa la leeyahay isagana isbitaalka ayaa loo qaaday lamana oga in isaga ay wax gaareen iyo in kale marka goobta ciidamo fara badan oo boolis ayaa yimid ICE-na dadka waa ay u diideen inay ka agdhawaadaan waxa arintan ay ka dhacday meel 4 mayl iyo bar u jirta halka wadada 34ka iyo Portland oo arbacadii la soo dhaafay toddobaadkood ciidamada ICE ay ku dileen isla markaana ay ku toogteen Renee Nicole Good oo ay dawladdu ay leedahay askarigu waa isdifaacayo gaarigeeda ay marsi rabtay gobolkuna uu leeyahay wana loo diiday baaritaanka in la ka qayb galiyo isla markaana ayna dilkaasi si ula kacayo u dhacayo askariga noloshiisu qatar kuma jirin marka haddana mar kale oo ICE haddana ay dhaawac geysteen ayaa hadda ka muuqanaysa in iska horimaadka ciidamada ICE iyo dadka shacabka u dhaxeeya maalmihii u dambeeyay si aad ah ayuu u sii kordhayay hadda macaawa haddana arrintan kale ayaa dhacday dawladdu xitaa maanta waxay sheegtay askarigii dilay Renee Nicole Good in dhiigbax dhinaca meesha lafdhabarta dhiigbax gudaha uu isagana jiray kulay dhulkana ma uusan ku dhicin gaariguna ma uusan marin dhiigbaxaasi halka uu ka yimid ma garan karo maxkamad sidoo kale federaal ah waa kuwii gobolku dacwad u gudbiyay ay ku dalbanayeen ciidamada ICE inay isaga baxaan gobolka Minnesota maxkamaddii waa ay dhageysatay maanta oo Arbaca ahayd waxaana la siiyay dawladda ilaa 19 bishan in ay ka soo jawaabto arrintaasi intaasina howlgalka ciidamada ICE waa ay sii wadan karaan sidoo kale waxaa jirta in xubnaha dimuqraadiyiinta ee Congress-ka ay maanta iyaguna ay soo diyaariyeen qodobo ay yiraahdeen ilaa 3 oo waxaan doonaynaa inaan xilka qaadis ku sameeyno wasiirka amniga gudaha Kristi Noem qodobadaas waxaa ka mid ah in Congress-ka ay ka hortimid maadaama xubno badan oo Congress sida Chicago iyo Minnesota oo kale ay ka dalbadeen xarumaha ICE dadka ay ku xiraan marka ay qabtaan in ay booqdaan oo loo diido hadda sabtidii ugu dambeeyay Ilhaan Cumar iyo 2 xildhibaan oo kale loo diiday waxaa sidoo kale ka mid ah in kalsoonidii shacabka ay ku xadgudubtay maadaama ay weerareen ciidamada ICE gobollo kala duwan bulshooyinkiina ay qalqal geliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah dhaqaalihii ciidanka ICE loogu talagalay in kontraktiyo dad iyada u dhow in ay siisay oo arrintaasina sidoo kale lagu haysto Ilhaan Cumar oo ka hadashay goobta maanta waxa ay tiri mustaqbalka in lacag loo ansixiyo oo Congress-ku u ansixiyo ciidamada ICE haddii aan nahay xisbiga dimuqraadiga waan ka fiirsanaynaa hadda government shutdown ayaa soo socoto oo 30 bishan January dawladdu ay xirmaysaa labada xisbina wada hadal ay gali doonaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka Minnesota caawa isaguna muuqaal ku dhawaad 6 daqiiqo ayuu soo duubay waxa uu yiri madaxweyne Trump gobolkan waxa uu la doonayaa qalalaas iyo dhibaato inuu ku jiro waxa uu doonayana waa intaasi oo kaliya shacabka waxa ugu baaqay inay mudaharaadka sii wadaan isla markaana mudaharaadkoodu uu noqdo mid nabdoon oo aan dhibaato lahayn waxaana sidoo kale shacabka ugu baaqay inay diiwaan galiyaan tacdiyada ciidamada ICE ay geysanayaan inta howlgallada ay wadaan waxa uu yiri haddii aad aragto iyagoo qof xiraya ama sidoo kalena qof dhibaateynaya mobilkaada la soo bax duub maanta haddii isla xisaabtan uusan jirin berri ayuu jiri doonaa marka shacabkana arrintaasi ayuu ku booriyey in ay sii wadaan in ay duubaan muuqaalana ay ka duubaan oo ay mobilkooda ay ku haystaan haddii arkaan ciidamada ICE oo dhibaatooyin dadka shacabka u geysanaya marka haddana caawa mar kale ciidamada ICE qof kale ayay dhaawaceen markan waxa la leeyahay waa qof Venezuela ka yimid oo wadanka sharci darro ku joogay waaba dadkii ay raadinayeen lugta ayaana dhaawac uu ka soo gaaray iyadoo dadweyne aad u fara badan goobta ay isugu soo baxeen isla markaana mudaharaad ay sameynayeen ay kaga soo horjeedaan ciidamada ICE xilli habeena lama arki jirin ciidamada ICE oo howlgal sameynaya howlgaladoodu 5 galabnimo ayuu inta badan ku ekaan jiray laakiin hadda waxaba muuqata in xitaa xilliyada habeenkii
ay howlgal la samaynayaan marka waxyaabaha kale ee ka soo kordha arrintaasi waa idila soo socodsiin doonaa afhayeen u hadashay wasaaradda amniga gudaha waxay tiri dadka saddexda nin waxay doonayeen in ciidamada ICE oo howlgal la waday ay gaadmo ku sameeyaan kadibna ay dhibaateeyaan laakiin askarigan isagoo istifaacaya ayuu xabadda ku riday lugta ayuuna ka dhaawacay markan kulley dhimasho ma jirto waa dhaawac sida la sheegayo wixii warar ah ee kale ay soo kordho haddii alla idmo waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin